فتاوضع أما سؤالها هي جوابها شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي وإن شاء الله تعالى سؤالي أصوقرتين أي نوبر دون إن شاء الله تعالى أنت أنا سؤالها بلابين waxaan baraarujinayaa kolley dumarkii shalay warqadaha soo qoray in badan oo kamidii waxay ahaayeen dumar markaas waxa weeyaan dhibaatooyin ka cabanaya oo sheegaya markaas waxa weeyaan loo duceeyo qaar xanuun ka cabanaya qaar caruurtoodii ka cabanaya qaar markaa arrimo kale ka cabanaya dhammaantood ba ilaahay waxaynu weydiinaynaa qof walba dhibta uu ka cabanaya ilaahay inuu dulqaado subxaanahu wa tacaala waxaynu ilaahay weydiinaynaa ilaahay qof walba arrintii uu doonayo oo bilaa macsiya inuu ilaahay u fuliyo ilaahay inuu faraj siiyo kurbada haysatay ilaahay qof walba inuu ka dulqaado kolley sheekhan insha allahu tacaala uu ducayn doona insha allahu tacaala haddaan kusoo dhowaado su-aalaha sheekha insha allah inuu bandhigayno su-aalaha lasoo qari kale way tiro badnaayeen hase yeeshee wixii aynu ka gaadhnay waqtigu inoo gaadho ayaynu sheekha insha allahu tacaala weydiin doonaa su-aasha koobaad waxay odhanaysaa sheekh haddii aan masaajidka jamaacada ka hor kusii tukado haddana anigoo masaajidkii dhex fadhiya jamaacadii ay soo gasho ma iska fadhiyi karaa anigoo maadaama aan salaada hore usii tukaday mise inaan jamaacada mar labaad la tukado ayaa igu waajiba falyatafadal sheekhu mashkuuran wamaajuuran الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلهي بير سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه نوافتشيه سيدا صحدا إلهي سبحانه وتعالى دل بدافع إنه كويدي سنينا وحي خالدي وقفي نقدعه su-aasha ku saabsan haddii gabadh ay masaajid tagto oo salaaddii wakhtigeedu uu soo galo oo goonideeda ay isaga tukato oo haddana salaaddii la galo jamacii ma la tukanaysaa jawaabteedu waxay tahay marka koowaad dumarka waxaa u fadli badan guryahooda inay ku tukadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahooda ayaa u khayr badan mar labaadka salaada jamaacadu dumarka waajib kuma aha taana waxaa ka dhalanaya haddii ay masaajidka tagto oo la eedaamo ama wakhtigii salaaduba uu soo galo iyadoo kelideeda way iska tukan kartaa laakiin sida afdalkii waxa weeye mar hadday masaajidkii joogto jamaacada inay la tukato saas ayaa u fadli badan وحديثة تلمامة يسفضل صلاة الجماعة إلى ذهي دمر كنوي يسوق ليا قد أي مركز صلاة دي قونو تكتي صلاة دي سواء كان صحي ساعة يدو مساجد كي جوكتا دي صلاة دي لا قيمينا وإن أنا مساجد كيسكدح فردين إلا تكتو ضدك مسلمين تكن أي مرلبات طهورا يا فرل كيدي تضمبنا وحيوني يسنسا صلاة سنة وعن سيدها ونري وقت النبي عليه الصلاة والسلام يدو رسوله كنت كان يوم مساجد كمنا وعن مساجد كسوق قال لبنين حق الدنبيس كفريستان مركي أي صلاة دي كبحيم ورسوله كويري حايد كل عيان ولدت كويدين وعن صلينا في رحالنا يا رسول الله ماليها أنه منك الدقنين بان كسوتو كان رسولك إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام يحول السيدة الصمينين هذه صلاة دي تكتان هذا مساجد كي اعتمادان والجماعة دي يدو لقوه قياد سوق قادان لا تكذبوا للنبي عليه الصلاة والسلام تضم بالسنة يدين نقنسا صوابتنا وحي تاي هذه دادك مسلمين تاو تكاليه
qofku xagga dambe iska fadhiisto arrintaas waxay dhalin kartaa tuhmad in la yiraahdo qofkani talo dadkan magaal u arkaa ma taariku salaad ba marka malayaasha iyo waswaaska noocaas shaydaanku furi karo ayaa lagaga hortagayaa arrinka wallahu a'lam. جزاك الله خيرا خير الجزاء. سؤال labaad waxay oranaysaa cuntada dadka Kiristaanka ah ma la cuni karaa? cuntadu sideedaba waa laba nooc. cunto wax la gowracay ka timi iyo cunto waxaan gowrac u baahnayn ka timi. cuntada ka timi waxa la gowracay oo hilibka xoolaha geel iyo lo'da iyo ariga iyo ugaadha waxyaabo la midka haddii dadka gowracay yihiin ahlul kitaab yahuud ay yihiin ama kristaan waxay gowracaan waa laynoo xalaalay وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بوري الله سبحانه وتعالى كوا كتاب كالسية ويهود كريستانة راشين كودو حلال بويدية نبينا عليه الصلاة والسلام waxay gowracaan waa cuni jiray oo gabadh yahuudiyada ayaa saynu ogsoonahay neef ay qashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sumaysay waana sunta markii dambe uu rasuulku u dhintay marka wixii ay qashay nebigu uu cunay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo abu daawuud wariyey in nin yahuudi uu rasuulka casuumay uu ku casuumay khubus iyo yahaala sanikha yahaaladu waa xaydh markaa urteedu xoogay ay isbedeshay oo raagtay xaydhuna waxaynu ogsoonnahay waxay ka timi waxyaabaha nool xoolaha ayay ka timi marka ahlulkitaabku wixii ay gowracaan haddaynu ogaano qof ahlulkitaab inuu gowracay ama qofku tusaale ahaan uu joogo waddan dadkiisu ahlulkitaab ay yihiin asalku waxa weeye wixii waddankaa lagu gowraco inuu xalaal yahay waxaad si gaara u ogaatay xaaraannimadiisa mooyaane cuntooyinka kale iyagu marka horeba aan gowrac u baahnayn iyagana waa la cuni karaa wax dhibaato kuma jirto waxa fiicanuun waajib bayaanay ahaane qofku weelkooda inuu iska maydho maadaama ay doofaarka cunaan khamrigana ay cabbaan wallahu aclam. جزاك الله خيرا. سؤال saddexaad waxay oranaysaa gabadhu iyada oo niqaaban golofisiyada xiran salaada ma ku tukan kartaa iyada oo aan iska saarin niqaabka iyo golofisiyada? haddii meesha ay joogaan rag gabadha ajnabika yaana zawj iyo mahram midnaba aanu ahayn way iskaga tukan kartaa wax dhibaatana ma laha. haddii aanay meesha joogin iyadoo golofisiyada xiran ama niqaabka haddii ay tukato salaadeedu way ansaxaysaa. shuruudda salaada ka mid maaha inay wejiga bannayso iyo gacmaha laakiin waa makruuh macnaheedu waa maxay macna waa arrin laga fiican yahay oo qofka ay u fiican tahay inuu iska daayo hadduu sameeyo kuma dambaabayo laakiin inuu iska daayo ayaa u fiican marka labada xaaladood bay yeelanaysaa haddii ay gurigeeda iskaga tukanayso ama meel ay dumar u joogaan ama rag maxramkeedii una ay joogaan niqaabka iyo galoofiskaba inay iska bixiso ayaa fiican. haddii ku tukatana waa arrin makruuha sababtuna waxay tahay waxaa la rabaa gacmaheedu inay halkii ay ku sujuudaysay ay baashiraan iyadoo aanay waxba u dhaxayn saas oo kale salaanteeda iyo sankeeduba inay gaadhaan meesha ay ku sujuudayso wallahu aclam. جزاك الله خيرا. سؤال أفراد waxay oranaysaa sheekh macallimiinta qaarkood ayaa ardayda waxa ay ku khasbaan xilliga aanay daahirka ahayn inay soo qaataan kitaabka quraanka kariimka marka ay joogaan madaarista xifdiga marka inanta soo qaadata xaaladda noocaas kitaabka quraanka ahaa iyadu ma ku dambaabaysaa ama wax dambiya ma ku leedahay? kitaabka quraanka qof aan daahir ahayn inuu taabtaa ma banaana rag iyo dumarba. ilaahay baa subxaana watacaala laa yamasu ila almutahharuun rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa yamasana alqur'aana ilaa daahir qof dahaaro qaba mooyaane qof kale yaanu kitaabka taabanin. saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim sida waa laga soo wariyey
صحابي سعد بن أبي وقاص إنا نودلي با كتابك قرآن كأو هي سن قرآن كو آخرني كدبنا كي وحال سو قدبنا دي وحوي سدي سجبيه وحكوري كتاب كدغا oo ordu soo weysayso Sheekh al-Islam Ibn Taymiyyah wuxuu sheegaa taabiciinta oo ragii saxaabada soo gaaray wax khilaaf oo masalada ku saabsan inaan laga sheegin ba bimacna isku waafaqsanaayeen oo faan daahir ahayn quraanka inaanu taaban karin macallinku marka wixii daruura keentay taa waa laga soo reebaya oo isku ognahay daruura tubiix al-mahdhur هذا كتاب كتصالحان وضيع مايو أما بس ملحن وكل عايو قف كان ظاهر كائن مركب وقبن كره ولا ما مفسده لبدا مفسدنا تيربا مركب الصمية ستوين لو قبل بال هذه أي مسألة ساعة هاي معلمكم معها دمر كائن كو خصبه حالات دمر كائن كشيران إلى كتاب كسوقاتان haddii isagu uu ilaa soo qaatana mar haddii gabadhu diinaar ay ku qanacsan tahay xaaladda inaanay kitaabka taaban karin inay hadalkiisa maqasho ma aha ee waa inay ku camal fasho sida iyadu ay aaminsan tahay xataa hadduu isagu aaminsan yahay sida culimada qaarba ay ku tageen in la taaban karo madhabkiisa ku dhaqmi mayso waxay ku dhaqmaysaa sida iyadu ay aaminsan tahay الدين أنا وقر عصنتهاي والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤال الشناد وحي ورنيسا شيخ قبل الرياض ورسو مرتي يدو أبيض وجوغو ما لما سافي سكرا أما يسو أبيض آنو بحنين نيك مالك الملوك مهري كرا قورك أركانتي سامتي رركي سواحا كميدا الولي gabadha qofkii ama ninkii mas'uulka ka ahaa inuu bixiyo quraankana waa lagu sheegay ilaahay kirwaankii xalaayama minkum was-saalihiina min cibaadikum waxa kale ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri fala ta'duluhunna nabiguna alayhi salatu wasalaam xadiis tira badan buu ku sheegay waligu guurka laga maarmaan inuu yahay la nikaaha illa bi wali xadiis abi Musa al-Ash'ari wa xadiis sahih يا حديث كلام بدن تمر كودا مارينتا way ka simeeyeen tashabada ayat guur hore soo martay midna bila wali ma meher samayso hatta daan wali lahayn waxa mas'uulka dawladda maxkamadda ama qaadiga ayaa meherinaaya wallahu a'lam waxa loo yaqaan masaafaduna waa shay baatil weey oo gabadha waligeedii uu joogo in la baxsado laga kaxeeyaa oo wax sharciga khilaafsan dhaqan xun oo diintana aad ugu hor imanayana ah waxa la loo xarinta ku ansaxay ana ma jiraan wallahu a'lam. جزاك الله خيرا. سؤال كحيتا waxay oranaysaa sheekh ma gali kara hagbad aanu ninkayga ogeyn oo aan ka geliyo biilkii uu ninku siiyay arinta ku saabsan masruufka ama biilka uu ninku reerkiisa siiyo gabadhu wax iyada u gooniya kama isticmaali karto asalku waa sidaas oo intay biilkii wax ka jarto iyadu iskama kaydsan karto iskama dhigan karto ama dad kale kuma masruufi karto ama iyadu waxyaabo biilka ka baxsan way u baahan tahay kama soo iibsan karto إلا بعلمه سوى أرنتها أقمويان وسوى قلاده وفصح أرنت مركا أقبدنا تعصب يسوس جلسا دي أقبدها كل والعقل ورورنا يوني أي اللي فيه دور الصنيس يوحي أبيض وعيدون يسين يكون قبصته وما بنانا أرنت نوع عسين وننكو قلاده ما هو فصح مويان haddii ay reerka u ururinayso tusaale ahaan ay biilkii inta wax ka jarto ay ururinayso ama hagbada la sheegay ay ku darayso hadhowna waxay ku qabanaysaa ay tahay saalixdii iyo danihii qoyskaas tii ninka tii caruurta tii guriga
taasi wax dhibaato kuma jirto laakiin waxa shardi u ah inaan arrinta aanu ka dhalan tadyiiq cala ahli albayt oo haddii biilkii markay lacagtaa ka jarto biilkii reerka uu suquuqul ku noqonayo oo hagaagsan aanay siinahayn ninkii iyo carruurtii taas iyadu uma bannaana laakiin ta laga hadlayaa waa haddii biilku uu ka ballaadhan yahay oo uu ka badayo waxay ka go-ayaan waxbaa ka goyn kartaa si ay reerka ugu ururiso oo maslaxada iyo danaha qoyska ay ugu qabato isla markaana inay ninka ogeysiiso weeyaan taa lafteeda si aan hadhow toole aan dhibaata aanay uga dhalan marka uu ogaado wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh ninkaygu hooyada ayuu caayaa salaadana si fiican uma tukado haddii ninka aan ka dalbado furiin wax dembi ma iga soo gaadhaya masalada hore ee agbadda ku saabsaneyd waxaan ku darayaa haddii gabadha iyada biilkeeda gooni loo siiyo waktigii hore ayay jiri jirtay kutubta fiqigana way ku qoran tahay in gabadha dee wax go-aan la siin jiro oo kuwa fuqahada qaarkood yidhaahdaa raggaa 3 loo qaybinayaa muusir mutawasit iyo mucsir mid maalqabeena mid dhexdhexaada iyo mid caydha marka hadduu yahay maalqabeen 2 mudoo raashinay maalintii ku leedahay iyo iidaamka bidhiq caana iyo waxyaabo noocaas hadduu yahay mutawasitna mud iyo badh hadduu mucsir yahayna mud bay ku leedahay marka haddii taasoo kale tusaale ay dhacdo gabadha la idhaahdo adiga masruufkaagu waa intaa oo adiga masruufkaagii gaarka ahaa weeye kaa iyadaa iskale way mulkiyeysa oo hadday doonto intay cuntadaba iska daysay iska soonto ayay waxyaabo kale ku isticmaali karta laakiin inta aynu ka hadlaynaa masalada hore jawaabtu ay ku saabsanayd waa biilkii reerka oo dhan ka dhexeeyey iyadoo aanay gooni u lahayn masalada ku saabsan ninka salaada si fiican aan u tukanahayn caydaana samaynaya waa nooc min alibtilaa waa qof imtixaaman qofkaasi dhammaanteenba waa u ducaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo hanuuniyo allahuma ahdii wa aslixu yaa rab alcaalamiin caydu waa dhaqan aada u xun weliba qofku markuu yahay qof weyn oo waalid oo lagu dayanayana way sii fool xun tahay oo wuxuu noqon karaa qof waddo xun jideeyey waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a ayuu soo geli karaa sideedabana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufr muslimka in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaano waa dhaqanka gaalada almu'minu laysa biاطacaan wala allacaan wala alfaaxish albadii rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam muuminku ma aha mid duris badan oo dadka dura wax ka sheega mid wax nacdala ma aha mid af xun oo wax xun ku hadla oo dadka wanaagsan ay ka xishoodaanna qofka muuminkii ma aha oo qof carabkiisa dhowro wax wanaagsan ku hadla salaadana de waynu garanaynaa qiimaheeda ilaahay agtiisa ay ku leedahay waxay odhan jireen culimada qaarkood haddaad doonayso inaad qiyaasto diintaadu intay leeg tahay waxaad eegtaa salaadu qiimaha ay agtaada ku leedahay marba iimaankaaga iyo diintaadu waxay leegtahay salaadu inta ay qiimo agtaada ku leedahay marka ninkaa horta waad u ducayn doontaa marka koobaad inuu ilaahay soo hanuuniyo waanaad waanin doontaa adigoo waanada markaa aan ka dhigahayn waana kulul si dabacsan oo ladifan oo ay ka muuqato inaad wanaagun la doonayso ula hadlahay arrinta furniinkana ha ku degdegin mar haddaanu taariku salaad ahayn salaada gebigeedaba ka tegay oo aan tukanba ee uu tukado sagsaagba salaadiisa ha ku jireen ha ku degdegin furniinka lacala allah yuslixuhu waxaa laga yaabaa in ilaahay subxana wa tacaala xaalkiisa uu bedelo una ducee waanadana u wad wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku siigta waxaa odhanaysaa sheekh diintu maxay ka qabtaa
in qardhaas la xidho iyadoo markaas waxa weeyaan shifaa ama caafimaad laga raadinayo. waxaa loo yaqaano qardhaastu noocyo ayay leedahay oo xukun qura ma yeelato. haddii waxaan qur-aan ahayn uu ku qoran yahay, waxaan qur-aanna ahayn ducana ahayn, haddii uu ku qoran yahay xidhashadeedu ma bannaana. haddii qofka xidhay uu aaminsan yahay iyada lafteedu ay ixtaraysa waa shirki akbara, shirkigii weynaa diinta lagaga baxayo wey. hadduu aaminsan yahay inay sabab tahay ka waxtaraya ilaahay uu yahayna waa shirki asqara. haddii ereyo shirki ay ku qoran yihiin qardhaasta, sida qofkii oo ilaahay cid aan ahayn loo baryayo, qofka qoray uu baryayo sida jin iyo awliyada iyo wixii la mid ah, iyaduna shaki la-aan waa shirki. haddii qardhaasta uu qur-aan ku qoran yahay ama ducooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey, amaba se ducooyin kaloo wanaagsan, allahuma shfihi allahuma shfihi allahuma shfihi ama asalu llaha an yashfiyaka, waa ducooyinkaa wanaagsan baa lagu qoray. iyadu shirki ma aha, waxa meesha ku qoraniba waa qur-aan. mar haddii qofku aaminsan yahay inuu ilaahay shaafiyayo, qur-aankuna uu sabab u yahay shifaaga iyo ducooyinku, shirki weyn iyo shirki yar midnaba maaha iyadu. laakiin ma bannaan tahay mise ma bannaana? culimmadu way isku khilaafaan. waxaana fiican qofku inuu iska daayo asbaabahan soo socda awgood. sababta koowaad waxay tahay waxa ku qoran baan horta la hubinba. oo dadka qardhaasaha qoraa qaarna qur-aan bay ku qoraan, qaarna waxyaabo kale ku qoraan. qardhaaso dhowroo anigu aan arko aan furfurayna qaarkood waxaa nagaga soo baxay waxaan qur-aan iyo ducatoona aan shaqo ku lahayn, xuruuf muqataca, xuruuftan alifbeetada oo dee qur-aanna ma aha, sunnana ma aha, ducana ma aha. qaarkoodna magacyo ay u muuqato magacyo jin inay yihiin ayaan ku argay. marka waxay noqon kartaa taa qur-aanka lagu qorayo lafteedu mid ay ku soo gabato tii wax kale ay ku qoraayeen. waxaa kaloo culimada diiday u diideen nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay idhahdeen si guud buu u diiday isagoo aan qardhaasaha kala qaadqaadin. man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka buri nebigu calayhi salaatu wasalaam. ta kale waxay yidhaahdeen waxaa ka dhalan kara in qur-aanka xurmadiisii meel lagaga dhaco haddii qur-aanba lagu qoray oo qofki isagoo daahir ahayn uu xambaarsan yahay, amaba se dee inuu la galo musqulaha iyo meelaha noocaasa. arrinka afraad, nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba inuu qur-aan dad ugu qoray warqad ama ducooyin oo uu yihi xidha lama soo warin, sida alimaam ibn alcarabi raximah allahu tacaala. sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa alruqya, qur-aankii iyo ducadii intuu akriyo inuu ku tufo waxa weeyaan qofka. marka taa qur-aanku uu ku qoran yahay haddii qur-aanba lagu hubo ama ducooyinka wanaagsan ay ku qorayiin, iyada lafteeda waxaa fiican qofku inuu iska daayo siyaabaha kale ee la isku waafaqsan yahay qur-aanka in la isugu daweyn karo inuu isugu daweeyo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aasha kusii xigtaa waa su-aasha odhanaysa sheekh, waxaan ahay ardayad daalibulcilmiya oo cilmiga barata, waxaanan doonayaa oo aan jecelahay inaan noqdo gabadh muftiyada oo dumarka u fatwata, maxaad igula talin lahayd? waad noqon kartaa. qofkana had iyo jeeraale wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka malaysto ama uu ka rajeeyo wuu helaa. ilaahay waa ka xadiisulqudsi ee ku uhi anaa cinda danni cabdi bi, addoonkaygu wuxuu iga malaysta ayuu iga helaya. himada sarraysa, hanka iyo yuhuunta sarraysaana aad bay u fiican tahay. qofku inuu meel sare waxa weeyaan uu higsado, meelaha hoose iyo dhulka soke aanu ku qancin. taladu waxay tahay marka koowaad inaad niyadaada saxdo oo cilmiga aad u barato ilaahay daraadii, inaad ku cibaadaysato, naftaada jahliga aad ka dulqaado, dadka laftoodana inaad cilmiga waxa weya inaad ku anfacdo. waa inaad iska ilaaliso riyaaga
istusnimada uu shaydaanku qalbigaaga ku tuuri karo. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. mar labaadka ilaahay tala saaro oo caqligaaga iyo fahamkaaga iyo dadaalkaaga ha isku hadlayn. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah. ku dadaal wixii waxtar kuu leh laakiin ilaahay kaalmayso. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إلهي تلا صارتا إلهي قرى تلا صارتا دي المؤمنين دبتين. أرنك الصدحات وحيهاي علمك برشدي سوى الله مرة إلا يضع وين هذا الشوع عدد علمك كبرته عدة أنا لبصي فلقوا مارمان بويه سفدكم بضوحي تاي inuu cilmi leeyahay la qof aan aqoontan aad ka doonaysaan lahayn dad kitaabka hoos dhigato jahli un baad ka baranaysaa cilmi ka baran maysa. taana see lagu garan karaa qofku inuu cilmi leeyahay? waxaa lagu garan karaa cid cilmiga lagu yaqaano culimada waaweyn ka midi inay kuu taskiyadaan ay ku dhahdaan qofkaasi cilmiga uu yaqaanaa ka baro. ama qofku inuu yahay qof cilmigiisu ijtihaaray oo caan baxay oo dadkuba ay wada yaqaaniin culimo iyo caamaba inuu ahlucilmiga uu ka mid yahay. sifada labaad laga maarmaanka waa inuu dayaan qof diin la waynayo qofku. waxaa soo gelaya taa caqiidadiisu inay sax tahay si aanu ku waraabin caqiido khaldan. caqiidadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada waa inuu aaminsan yahay wadadii dadkii hore wanaagsanaa qof hayo maraya waa inuu yihi bidcooyinkii waxyaabaha noocaasa ka maran. saas oo kale qof akhlaaq le waa inuu yahay iyo dhaqan wanaagsan. qofka caqiidadiisu haba fiicnaatabe hadduu macallin kuu noqdo isagoo akhlaaq xun waxaa dhacaysa inaad akhlaaq xumadaasi adiguna aad ka barato macallinku ardaygiisa uu raadeeyey. arrin kale taasoo raacaya wuxuu yahay cilmigu أساسيات بوليهاي وحوضوه الرئي قفك إنه يتقانيه صفي عنه وبرطو القراءة والكتابة قراءة الكي أخرس عربي أنه صفي عنه لماذا قفك ويقان كدي بنا كتبت علم والسيدة يوكلا يريري هنا يوكلا الرئيان علمي ولي يفني ولي بوحو ليه سلسلة كتبها كتاب ويرى لغو برابو هي كتاب حق ديجيستا أسر ريو اللي قالوا marka cilmi walba waa inaad wadadiisa aad raacdo. dad naxwo dhiganayso dad juruumiga ka bilowda tusaalaha ilaa juruumiga aad meel iska dhigtood fahamto kuuba qaadato 20 jeer inaad ku celisee waa inaad dhaafin. dii kala xo tari mayso waana dadku maanta say u badan yihiin. dad tiraa juruumiga ma dhigatay haa utamimo ma dhigatay haa kitaabeyo ma dhigatay haa maxaad ka haysaa waxba waan dhigtay waxba tari mayso. muhiimka waxa weeye qofku inuu si fiican u fahmo. taasina waxay ku imanaysaa inuu waqti siiyo cilmi kuna celceliyo degdegna waa inuu iska daayo. bal u fiirsada maanta waxbarashadan maadiga ah inuu ognahay cilmiga diineed marka la garab dhigo inay aada uga kooban tahay muddo intee leeg dadku u sabraan. keejiga ka bilow ilaa digriiga u horeeya jaamacadda qofku ka qalin jebinayo waa imse sannadood. dugsiga hoose ilaa ka sare ayaa 12 sannadood haddii keejiga lagu daro 2 sannadood ku jira waa 14. 4 sannadood oo jaamacaddaana ku daro 18 sannadood bay dadku sii jeedaan axna ma yidhaahdaan. laakiin cilmiga diinta qofku wuxuu odhanaya hadduu meel sanad ku jiro ama 2 sannadood meesha waqtigeeda dheer maxadkaa muddo dheer baa lagu jiraa ama sheekhaasi sanaduu cilmigan dhigaa baa la odhanaya. marka waxay tusinaysaa dadku cilmigan qiimihiisa dhabtaa inaanay fahmin. waxaa kaloo jira talakhbudka noocaasi qofku marba fanni uu iska bilaabo marba kitaab uu iska bilaabo. naxwaha baro ka gungaadh fiqiga baro ka gungaadh usuul fiqiga waakada funuunta cilmiga hal marna ha wada qaadane marba intaad qaadan karayso baro. haddaad tiraahdo 8 fanni ama 10 baan hal mar wada baranaya natiijo fiican meesha ka soo bixi mayso. 2 ama 3 haddii xifdigaaga iyo fahamkaaga uu badan yahay. fanni walba kitaabka u horeeya asaaska waa xifdi
dusha ka qabo macallinkaagana laazimo iska daa isbedbedelka macallin baa naxwaha yaqaan baa junuubiga kuu bilaabay isaga ka dhamayso maalmo mid hawle tegin macallimiintu way kala duwan way kala usluub duwan isaga wuxuu dhigaan way kala duwantay marka arrimaha noocaasa baan kugula talin lahaa ilaahayna subxaana wa tacaala himada fiican ha kuu suurto geliyo cilmigana naftaada iyo ummadaadaba ha ku anfaco wallahu aclam su-aasha kusii xigtaa waxay odhanaysaa sheekh muxuu yahay xukunka doorashooyinka in qofku markaas waxa weeyaan kaarka bixinta uu qaato kadibna markaas waxa weeyaan codbixinta uu ka qayb qaato dhibta loo codeeyo doorashada sideeda islaamku uma diidana waxaa la dooran karaa laakiin doorashada noocan ee maanta caalamka ka jirta waddankeenana ka jirta oo cid waliba ay doorashadii ka qayb gelayso ay wax dooranayso qofkii caqliga lahaa iyo kii kale kii diinta lahaa iyo kii kale mid walibana la leeyahay xaq buu leeyahay inuu ummadda hogaamiyo isu soo sharaxo isla markaa ummaddana qaybinayso shardi looga dhigay inay ummaddu horta xisbiya noqoto innagana ay qabyaaladuna inoo weheliso weliba xisbiyadii iyo qabyaaladii markay isguursadeen waxun bay dhaleen waan wanaagsanayn taana markhaati baynu ka wada nahay marka doorashada noocani markay sidaa tahay wax saxa maaha haddii dad ahlulxalli walcaqdi ay wax dooran lahaayeen dad caqli leh waxana ummadda u furi kara waxana u xidhi kara ummaddana maslaxaddeeda ka talinaya way koobnaan lahayd kharashkeedu wuu yaraan lahaa buuqeedu wuu yaraan lahaa khilaafkeedu wuu yaraan lahaa iyo fitnadeedu cadaawadday dhalaysa way yaraan lahayd fisqiga iyo macaasida iyo xumaantan ay jiidanaysa rimoodhka ay ku sidata waxaasoo dhami ugu yaraan way yaraan lahayn bal idinku isu qiyaasa un ila waddanka waynagii joognee waktigii madaxweyne cigaal dee doorasho madaxweyne way dhici jirtay haddana dadka badankoodu war umay hayn jirin buuq iyo qabyaalad iyo qaybsan iyo colaad iyo fisqi iyo waxyaaba macaasi oo dhaca mayna arki jirin in kooban baa wax dooran jirtay marka aad bay uga sahlanayd marka doorashadan xaalkeedu waa sidaa dee waxaan wanaagsanayn bay farac ka tahay oo dimuqraadiyadda ayaa sidan dhigaysa ninka xabagta ku cabaya dooxa hargeysa iyo ka dadka magaalada degan u sharaf badani ay isku cod noqdaan labaduba xaq ay u yeeshaan inay wax doortaan iyo in iyaga la doortaba khamriga cabaa ama xabagta cabaa hadduu isa soo sharaxo u yidhaahdo waxaan u sharaxayna waddanka inaan madaxweyne ka noqdo ama inaan golaha wakiilada ama deegaanka inaan xubin ka noqdo ama maayarba wax u diidaya ma jiraana soo ma ogin dimuqraadiyadda waa ogasha laakiin islaamku ma ogola dee qof noocaas inuu ummadda madax iyo hogaamiye inuu u noqdo marka horta asalkeedu waa sidaa wax saxa maaha wax saxa inay tan yahaan la moodi waxaaba inugu filanba inay ummaddii qaybinayso laleeyahay ilaa somalilan 3 xisbi ay ka jiraan oo ummaddii ay qaybsanto dimuqraadiyadii ma jirto doorasho sixina ma jirto xisbiyadana waynu ognay ummadda say u qaybinayaan guriga qura laga yaabaa in dadkii degan ay soo cadhoodaan ninkii iyo xaaskiisu inay isku furaan intuu idhaahdo xisbi hebel u coday iyaduna ay tira maya kale ayaan codaynaya in la isku dilaba qabyaaladda reeraha iyo waxaana de waynu aragnaaba dadkeenna qaabkani maanta wuxuu dooranayaan xataa gaaladu qaabka wuxu doortaan baa dhaama gaaladu iyagu gaala diin la-aan gaalay u yihiinba laakiin qofkay dooranayaan xagga adduunyadooday ka eegaan iyagu inuu xagga adduunyada dan uga yahay in kale innagu diinna ma eegno adduunyana ma eegno waxaa quree dadka badankooda eegaya waa maxay yaa reer hebela khalaas waxay soo sharaxay oo dhan keebaad isku qolatiinbu qofku ka dhex eegaya ka ugu liita adduunya isagu ugu ridaya hadhowna naartiisa ama dabkiisa qofka koobaada ku gubanaya waa isaga ayaa ka qaylinaya dadku wixii iyagu ay gacmahooda ku keeneen ayay ka qaylinayaan oo
hadhow toole xumaanahooda ay sheegayaan dadkan had iyo jeer siduu camalkoodu yahay baa madaxdooduna ay noqotaa sida ilahay wuxuu kadalika nuwalli bacda dhaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun markii la weydiiyey acmash sulaymaan ibnu mihraan imaamkii la odhan jiray maxaad maqashay culimmadu iyagoo aayaddaa ku fasiraya wuxuu yihi samictum yaquuluun idaa fasada annaasu wulliya calayhim shiraaruhum waxaan maqlay iyagoo leh dadku haddii ay xumaadaan waxaa madax looga dhigaa kuwooda u sharka badan maanta amar waaqiciya bay noqotay waa tan soo gebagabaynayey wixii de waa wax jira doorashadu waa taa jirta wax adigu aad maanta diidi kartid ama aad meesha ka saari kartid oo odhan kartid tanaa ka fiicanee tan ha lagu bedelo ama tanaan ku bedelayaana maaha alamrulwaaqic bay noqotay mar haddii alamrulwaaqic noqotay haddii dadka issoo sharaxaya ay isku mid yihiin wax isdhaamaba aanay jirin wax kuu geynayaa ma jiro inaad gashay wax kugu khasbayaa toona ee faa'iide ay keenaysaa baan jirinba iyadoo xumaaneydana wadata laakiin haddii ay timaaddo laba qof oo mid uu xun yahay midna wanaagsan yihi hadday soo sharaxaan maalan mid gaala gaalnimada lagu yaqaano murtada soo sharaxay iyo mid muslimnimadiisu ay sugan tahay mid faasiqoo fisqiga lagu yaqaan iyo xumaanta iyo mid dhaama mid khaa'inahoo ummadda waxeedu aanu ka baxsanayn iyo mid ammaano lagu yaqaan xaaladdaasoo kale akhafu dararayn qofku uu samayn karaa yaani labaduba dee saynu sheegnay asalka wixii asalkii baabaan hagaagsanayn laakiin dee haddii laba dhibaato ay kuu gudboonaadaan tayar ayaa la irtikaabaa lagu dhacaa si taweyn looga badbaado shiici baa soo sharaxay iyo mid ahlu sunnaa dee intuu shiici madax kuu noqon lahaa ka ahlu sunnaha dooro ama gaal iyo muslim ama laba qof oo midna waxa weeyaanu jaahil yahay midna waa aqoon leeyahy miduu yahay faasiq midna uu yahay qof cadliya alqawiy alamiin lagu tilmaami karo marka taasoo kale ayay dee ahlucilmiga waaweyne yidhaahdeen markay xaaladdaasoo kale gaadho ee dee noqoto in laba shar la kala doorto ama khayr iyo shar ayuu qofku waxa weeyaan irtikaabi karaa oo dee doorashadii uu samayn karaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran laba su-aalood oo isku dhow su-aasha koowaad waxay odhanaysaa sheekh ninkaygu salaada subax uma kaco haddaan u kiciyana wii karaayeystaa waa dhib buu ka dareemaa marka haddii isagoo dhibsanaya aan u kiciyo wax dhibaato ama dembi miyu aan iga soo gaadhayaa su-aasha labaadna waxay odhanaysaa hooyaday cuntada ayay diidaa oo abateedkeeda uma furna anna waan ku khasbaa wax dembi miyu iga soo gaadhaya salaada subax inaad u kicisaa oo waajib ku saaran weeye waxaanay soo gelaysaa alamru macruuf nahy can ilmunkar wanaag faristii iyo xumaan reebistii wanaag baad faraysa markaad leedahay salaada subax u kac salaada subax iska daaya waynu ognahay gabadha ninkeeda salaatuleilka u kicisay hadduu kici waayana biyo wejiga kaga saydha si ay hurdada uga duulsho ayaabuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaanay ajar weynna uu sheegay wax dembi kaa soo gaari maayo salaada subaxaad u kicinayso ajar baad biidni illaahi ka heli doontaa hadduu karaahiyeysanayo oo isagu uu dhibsanayo haddii ay jirto cid kale oo aanu dhibsanahayn sida waalidkii oo kale oo uu ka haybadaysanayo ciddaa kale inaad u dirto ayaa fiican oo culimadu markay fiqul amr macruuf nahy can ilmunkar ka hadlaya waxay dhahdaan qofka haddaad adigu markaad wanaagga u sheegto colaaduu kugu qaadayo ma xumaanta markaad ka reebto ama qaraabogoysnima ay ka dhalanayso waxa fiican ilaa adiga si gaara arrintu kuugumay waajibine inaad cid kale usoo mariso qof kale qofkaa kale aad tidhaahdo u sheeg haddii aanay cid kale jirin adiga iyo isaguna aad tihiinna iska karaahiyeystee adigu kuma dembaabayy sidee rifqiga un ku dadaalo si ladifan oo dabacsan un ugu sheego salaada ugu kici una ducee marka uu soo jeedana waani oo salaada subax iyo fadliga ay leedahay iyo
إن لتكوى يا أما تجمع على من وصفات المنافقين كم يتهايو أياد الشيء والله أعلم. سؤال شلبات عفوا ويدي عمتان كو خصباء عمتان ديدان كو خصباء أرنتا ميان كدن بابيها حديث بات شراء إن كستو علماء قاركود حديث وحكا الشيغان تلماما يقفك حنوصانيا وعنتدا إنا لغو خصبه ابن القيم رحمه الله تعالى ودنا عالم كادنا عن دكتور وحي هذا دخاتيرته وحي هذا حديث uga waafaqsanaan badan cilmiga tibbiga dhakhtarnimada ma aanan arag aradan qofku markuu xanuunsanayo cuntada in lagu khasbo maaha way waxa ka tagaysa shahiyada ama teedkii baa qofka ka tagaya waxa kale uu ku mashquulsan yahay jirkiisu la legdanka iyo iska difaaca xanuunkaas marka haddii lagu khasbo cuntada xataa waxay sababtaa inuu xanuunka laftiisa u jabo qofku marka qofkii xanuunsanaya cuntada in lagu khasbo maaha haddii uu waalid yahay uu karaahiyeysanayana ka sii daran hal mid un baa laga soo reebayaayo haddii qofkii dee waxbaba uu cuni waayo ay ka dhalanayso inay awoodiisu isa sii dhinto ama laga baqanayaba inuu halaagsamo markaa si dhibaatada looga ilaaliyo waa lagu khasbi karaa haddii waalidkii lagu khasbana lagu dambaabi maayo mar haddii maslaxadiisa iyo dantiisa laga talinayo wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤال شكل واحد أورنسا شيخ إلهي سبحانه وتعالى ما دام ويسوى أضومه وأبوري حدنا حدي وأضوم قدام بابا محل عذابيا أما سلوا عقابيا عدي دنبي قشا دنبي قا إن أبا المرينتي سلام مريا أرين حن معها عقلي يكون حما جميع العقلاء قف عقلي جزء سادم وياه أرين تنوع عاسى ويسكوا فقسين حتى كوا ملحدين تاه إلى يشريتان كي سديدا عدة يقدم بك قشا إلا حرة إن عقابي كلا القصة مايو ويتشعلي وأنا أقولي عيد ولي بنا قال نوعيدي سكال الدوان هي إسلام با waxay leeyihiin tabo iyo qaabab cid khaladaadkii dambiyada gasha ay ciqaabaan ka bani aadamku waa ogol yahay arinta noocaas laakiin dadka qaar kood oo dadka inay diinta ka shaki galiyaan doona ama ilaahay iyo khalqigiisa inay shubha dhex dhigaan oo khalqiga khaaliqoodii ay ku diraan ee hadallada noocaas ay ku hadlaan ilaahay cidna ma dulmiyo وما ربك بظلام للعبيد إلهي سقوا أود الظلم قادنا واسك حارتمي إني حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرما إلهي يو عذابا عندي متيسطا ولبا إلهي سبحانه وتعالى كو عذابك متيستلفتو دمو عذاب عدوا الدون إلهي عافية marka la dhinto qofkii gaalnimo ku dhintay mooyaan dadka islaamnimo ku dhintay dambiye la dhintay illa weylo waa la cadaabaya dhamaantood ma oran karo ilaahay baa quraanka ku yiri in allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wixii aan gaalnimo ahayn dambiye qofkii ku dhinta ku doono ilaahay u dhaafa marka ilaahay ciddu cadaabana wixii iyagu ay sameeyeen ay mutaysteen ayuun buu ilaahay ku cadaabay taasina waa arrin caqliga iyo fitrada waafaqsan wixii iyagu ay galeen dambiga khalad ilaahay ku cadaab waliba hadii uu jahli u geeyo waxa ilaahay kuma cadaabiyo wama kunna mu'adibina hatta nab'ath rasula abu ilaahay qofna cadaabi mayno ila rasulan soo رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل qofkii wixii waa loo sheegay marka hore waxaasi waa mamnuuc danna kuma aha ciqaabkaasina uu ka dhalanaya ogow isaga wixii sameeyay in marka ciqaabkii la mariyaa aqli ahaan iyo fitra ahaan marka sharciga laga yimaado midnaba khalad ma
haddaanay jiri lahayn ciddii khalad gasha khaladkooda in lagu ciqaabana adduunyada inta la joogo loona sii sheega aakhirana in qaar lagu ciqaabayo caalamku wuu fasahaadi lahaa oo dadka badankooda faldembiyeedyada maxaa ka celiya dee baqaay ciqaab ka baqanaya waa lagu xidhi doonaa waa lagu dili doonaa waa lagu garaaci doonaa taasaa ka celisa haddaanay taasi jiri lahayn oo la dhaha cidba lama ciqaabi karo laa fi dunya walaa fi laakhira caalamku geligiisu wada fasahaadi lahaa sia loo kala xoog weyahay baa la soconi lahaa dhibaatooyin badan baa dhici lahaa oo nafta iyo maalka iyo cirdiga intaba waxa weeyaan gaadha markaa qofkii garanaya ilaahay cidna inaanu dulmi ku ciqaabahayn fahamsanna ciqaabku inuu ka dhashay khalad iyo gef qofkani uu sameeyey isagoo garanaya qofkaasi su-aasha noocaas oo kale ma keenayo ka su-aashaa keena laftiisana su-aal kale la weydiin kara waxa la odhan karaa waxaad ka warantaa qofka adiga dhibaato kuu geysta ka waran qof baa carruurtaadii o dhan buu dilay xoolahaagii o dhan buu qaatay adiguu ku ceebeeyey maxaad ka dareemaysaa naftaada ma inuu qofkaasi mutaystay in la ciqaabo mise in la ciqaabaa inay tahay xaq daro waynu garanaynaa waxa ay ku jawaabayaan waaqicoodaanay ka muuqata wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa sheekh waxaan maqlay sheekh sheegaya suuratu tiin qofka akhriya ee ku celceliya in uu wuxuu niyadda ku qabsado uu helayo arrinta noocaasiya maxaa ka jira ajar gaar ah in la idhaahdo waa laga helayaa cibaadadaas daliil bay u baahan tahay daliilkuna waa noqdo daliil ansaxay oo aayad qur-aana ama xadiis nabiga calayhi salatu salaam ka sugnaaday suuratu tiin wax xadiis oo saxiixa oo fadligeeda ku soo arooray ma jiro kolley waa jiraan axaadiis daciifa waxaa ka mid a xadiis odhanaya qofka suuratu tiin akhriya ilaahay subxaana watacaala intuu adduunyada joogo wuxuu ku arsaaqaa yaqiin iyo macrifo yani iimaan iyo garasho aakhirana waxaa la siiyaa ajar la tira ah dadkii suuradda akhriyey ee adduunyada soo maray lakin waa xadiis daciifa weeye marka wax xadiis oo saxiixa oo ajarka noocaasa sheegayaa ma jiro wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigtaa waxay odhanaysaa gabadha ma u bannaan tahay inay qubuuraha soo siyaarato waa soo booqan karaan dumarku qubuuraha adilana waa tusisay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha rag iyo dumarna ma kala reebin waan idiin diiday markii hore xabaalo inaad booqataan hadda booqda fa inaha tudakiru alaakhira aakhira idin xusuusinaysa sababta loo booqanayana rag iyo dumarku way wadaagaan oo aakhiro in la xusuusto siday raggu ugu baahan yihin dumarkuna way u baahan yihin asxaabulqubuurkuna ducada ragga siday ugu baahan yihin ta dumarkana waa u baahan yihin caaishana radia allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay xabaalaha markaan tago maxaan idhaahdaa haba tegin dee rasuulku kuma odhan ee wuxuu baray ducadii ay akhri lahayd markaa sida saxiixa dumarku xabaalo waa booqan karaan laakiin shuruud baa jirta ay ragga dheer yihiin shuruuddaas waxaa ka mid a waaba shardi guud be inay gabadhu xidhato jilbaabkii sharciga ahaa oo tabarujka inay iska ilaaliso inay fitno ka aamin tahay in iyadu fitnoodo la fitneeyo ama in iyadu wax fitnayso oo dad diintooda inay seejiso ama iyada diinteeda in la seejiyo saasoo kale dee nafteeda iyo cirdigeeda inay amni u haysato haddii xabaalaha markay u baxdo dad aan hagaagsaneyn halka ay ka helayaan ay dhibaataynayaan ee dhibaato nafteeda inay geliso maaha waa inaanay cadar iyo wixii udug oo dhan ismarin waa shardi guudba mar kastoo guriga ay ka baxayso sidaas oo kale markay xabaalaha tagto waa inaanay isbedelahayn qof walibana isaga isu warhaya hadday isbedelayso inay baroorato ama ay qayliso waxyaabaha noocaasa haddii ay dhacayaan markaana ma banaano wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aasha ku xigta waxay odhanaysaa sheekh soon aada u badan ayaa iga tegay dhallinyarnimadii jahli dartii mana garanayo tiradiisu intay ahayd maxaa yeela
كل جهل وحن ملاين هنا وجد شدون استقامة الآن أنا قف دين تكون رقمه وكنت وصل بان العين ملا وجمت شد الصوم كون واجب يا بان الجرني قف الصوم كون واجب كوي يا دان الجرني قرش الآن تاسي وحي كون عفاي وحمل لك جمالها قف عبادات وحي كون واجبان مركو علم جودية شيء واجبين وقرته مركز بيكون واجبان لكن هذا الجرني الصوم كون واجب كوي هاي واجبka gudashadiisu inaad ka gaabisay hadaad tiradii garanayso waa inaad qallayso haddaad tiradii garanayna sadidi wa qaaribi inta ugu badan aad isleedahay rabadaan way kaa tageen waa inaad soomto weeye soomka sunnaha ana farabadi si haddii aakhiro soomkaaga ay nuqsaani gasho lagugu kabo oo nuqsaanta lagugu buuxiyo wallahu aclam سؤال شوي طبعا حرنا سشخاتي قبل فرين دلبتو نكينا وفرو بهذا الحق ما هو اللي هي مهر كذي وحكم إذا إنه نك وإليو حق ما هو اللي يسمون بهذا بعلني أرتق قبل وين فرين دلبتو مركه هربا معها أداني تشيرين دبعتو عن الله كيسن كريم رسولك عليه الصلاة والسلام حديث الإمام أحمد يا أبو داود وريه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام قبل كستو نين كذا تراضى فر يدو أنو دبشرين شنادو حرام بكتب ودوك شنادو ومهشو كودن بوي إن قبل وصير وفضل سكت تراضى فر المنافقات المختلعات هن المنافقات النبي عليه الصلاة والسلام كوا فرين كالضلبة ولبا إيبسانيا ومنافقات بول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ودد إيمان كود ضعيف يعني marka goorma la oran karaa gabadhii waa u banaan tahay inay furniin dalabto min غير ما بأس inta maxaa daabid ama qaacida ah ay culimadu yiraahdeen yaana wax loogu cudur daarayo dadka markay u sheegto tira waxaasaa jira oo arinta awgeed baan furniinka u dalbay dadku ay u garaabayaan dadka wax garanaya ay u garaabayaan hadaa waad saxsan tahay laakiin wax kastoo loogu garaabahayn dadka cilmiga leh aqliga leh naxariista leh aan ugu garaabahayn haddii daraadii ay furniin u dalabto xadiiska ay soo gelisay wadiyada meherka ku saabsan haddii gabadhii ay ninka furniin weydiisato ay tiraahdo fur oo arrintaas ay dhacdo iyadoo wax dhibaato aan jirin ninku xaq buu leeyahay inuu raahdo ku furi maayo ilaa aad meherkii ka tanaasusho ama ilaa aad siiso lacagta intaa leg ilaa $10,000 siiso ku furi maayo inuu xaq buu leeyahay ninku khulci waxa la raahdo sameeynu ku raahdo فلا جناح عليهما فيما افتدت به وكيل الله سبحانه وتعالى سورة البقرة كل وحاوقاتي كدن بابي ما يودن وحاي بحسي كما دن بابي سو حولاس لكن وإن أنا يسقوا هرنتا كو خصبين هذا يسقوا تصالحان وعريري قلي ويسقوا دباطين فور حقوق دي قودي مايو فورنا مايو وحليه إلا أضلعكتها بحساب مهركي أتكادو كفوري مايو تاسمو بناني يسقوا حرام بتاسكتها على كل حال هذه نينك وصيداي isagoo sida oran gabadhii uu furo meherkeediina uu isagu la diyaar yahay meherkeedii inay furniin dalabtay ku dhici maayo meesha kaga bixi maayo laakiin haddii lagu heshiiyey marka hore ifur waayo meherkii ka tanaasul ama maalka ay sii maalkii ciddii ninka kula heshiisay buu xaq ugu yeelanaya iyada ha noqoto ama aabaheed baa ha noqday wallahu aclam جزاك الله خيرا لبس سؤال هذا يناز قدو سؤال شكو بعد ما نسجل الشيخ هذي شركة أما الدولة الشغالة ونقنيسو مع شروط اللي هو بعين هاي يسؤال كورونا الشيخ واحد هاي قبل الشيخ ليس الدولة ده واحد شركة العقل يجاهدو هبين رح ومعناه إذا يبغى قبل كم مجالات كم مكان تاعي شقو مكان تاعي لسيو مرة كاركونا أنا وحول مقابلين لكن مجالات كم مكانين لهذا هو العقب على السينية أرنت ما حيدي تبغى
arrinta ku saabsan camal mara shaqada gabadha asalku waxa weeye gabadhu inay gurigeeda ku nagaato si Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula camalkuna si guud xaraan uga maaha gabadha inay shaqayso waxa dhici karta inay shaqada iyadu u baahan tahay si ay nafteeda ugu dabarto ama reerkeedaba ama reerkoodaba oo iyada hawshaas ay ku soo baxsatay waxa dhici karta saasoo kale in ummaddu ay u baahan tahay shaqadeeda ummadda ayaa shaqadeeda u baahan waxa dhici karta inay ummaddu shaqadeeda u baahan tusaalehaan cilmiga dhakhtarnimada ay baratay ay dumarka iyo carruurta iyo daweyso iyadaaba loo baahan yahay marka shaqada noocaasi xaaladda way bannaan tahay laakiin waxaa shardi u ah inaanay xuquuq kale ku dayacmahayn haddii xaqii ninkeeda iyo carruurteedii ay ku dayacmayaan xuquuqdaasaa ka horeysa shaqada ummadda ay u qabanayso camalka u qiimaha badan ee gabadho ay ummaddeeda u qabataana waa inay jiilasha cusub ee soo koraya tarbiyadayntooda qayb ay ka noqoto hada ajallu camal camalka u qiimaha badan ee gabadho ay u qabato waana camalka maanta suuradiisa laynoo fool xumaynayo dumarkii in guryaha laga saaro waxaa raba inuu qoysku burburo carruurta bilaa tarbiyad inay ku dhacaan dumarka laftoodu inay dayacmaan oo gabadh kasta oo gurigeeda meel ka baxsan ka shaqaysaa inta badan dhibaatooyin bay la kulantaa camalkii waxaa kaloo shardi ah inuu asal ahaan xalaal yahay dee khamri haddii la iibinayo rag iyo dumar midna xalaal uma aha waa in gabadhu aanay nin ajnabi ka meel kula gooni noqonayn iminka waxaad arki kartaa hablo waxa weeyaan dhakhtar doctor kelidii meesha kula jira ama nin bay u tahay secretary xoghayn kelidii bay qolka kula jirta waa khalwadii shareecadu ay diiday ikhtilaad waa inaanu ka dhalan shaqada rag iyo dumar ajnabi kala ah inay isdhex galaan isdhex qaadaan wixii daruuro keenta mooyaane ka waxyaabahaas oo dhan baa camalkii ama shaqadii loo ilaalinaya gabadhi waa in markay baxayso iyadoo dharkii ilaahay ku waajibiyey xidhan waa inay baxdo jilbaabkeeda waa inay ku shaqaynayso su-aasha labaad ku saabsan habeen dhaxa ana waa lacag qofku marka uu meesha uu ka shaqeeyo magaalada ka shaqeeyo meelaan ahayn markuu shaqo ugu baxo uu qaadanayo shardigaasaa ku xidhan marka haddii ay taasi ay jirto shardigaa la helo dee qofku u qaadan karaa haddii kale oo xeer bannaynaya uu jiro oo dowladda ay u ogoshahay qofkii isagoo meeshiisii jooga hadduu shaqadaa qabto in lacagtaa uu qaato wax nidaamiya ay tahay oo qaanuuniya dhib ma leh laakiin hadduu shardigu ahaa lacagta in lagu qaadan karo oo qura marka habeen la dhaxo qof aan habeen dhaxaa samaynin ma qaadan karo lacagtaa dowladduna lacagta dadku ay gaarka u leeyihiin iyada ka culus dadku way fududaystaan oo lacagta dowladda markay xadayaan ama ay musuqmaasuqayaan inay xalaal iska guranayaan bay u qaataan iyadoo laga yaabo dadka inay xadaan inay foolxumo weyn u arkaan xoolaa dadku ay gaar u leeyihiin laakiin tanaa culus waayo tan waa xaq ummadoo dhan wada leeday qof kasta oo bulshadan ka mida ayaa lacagtaa 1,000 shilin aad qaadatay wax ku leh xataa cid hadhow aad u tagto aad tira iga saamaxa garan maysid celinta waad celin kartaa hadda waa inaad dowladdii dib ugu celisay laakiin qofkii gaarka aad xoolihiisa qaadatay iga saamax waad odhan kartaa waad ku dhiiran kartaa waad u celin kartaa marka aad bay culus tahay in aad la isaga ilaaliyo wey wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤال شيخ توحي ورئيسا شيخ وحان اسقوري شركة حشيش قادة سلامر كاسين حشيش كقولي كصوب حقات ويريه هدي أن غير كقولي وحيقا أن حشيش كقدر صدو لو إذا يتناهل وأنا بشي لعك بحينين شركة دينا أنا نشيين واحدة باتاعي واحدة من المكترة المسلمون على شروطهم مسلمين توحى حره هشيس كوده مر هدي هشيس كو يهي غير ولو حافظة دقن إن شركة ساحريش في قادو العقد انت لقنا بحيان
in khiyaamo la sameeyo la isku dardaro oo laba reer ama saddex reer ama ka badan isku daraan si hal lacag ay u bixiyaan mid bannaan ma waa khiyaano arrinta noocaasi xashiishkana yaraantiisa iyo badnaantiisa marka horeba lagama heshiin oo waxyaabaha jahliga lagaga sugan yahay loo dul qaadan karo shareecada ay ogoshahay waa sida tusaale ahaan xamaamkii la gelayo kirada lagu gelayo kale weeye qof baa laga inuu biyo badan isticmaalo midna biyo yar buu isticmaala laakiin isku lacag unbaa laga qaadaa mid baa muddo dheer ku jiraya mid in yar buu ku jiraya markii uu ka soo baxaya haddana lacag isku mid ayuunbaa laga qaadaa marka badnaantiisa iyo yaraantiisu mar haddaanu heshiiska hore qadar u yeelin waxba ka bedeli mayso arrintii lacag bixinta qofka muslimka ahina sidiisaba naftiisa waa inuu baro qaab nidaamsan inuu u noolaado qofku oo had iyo jeer wixii nidaama xagga dowladda ha ka yimaado shirkada heshiis la gashay xaggeeda ha ka yimaado qofku inuu sidiisa u ilaaliyo naftiisa inuu nidaamka baro ayaa qofka u fiican bulshadiisana wanaagsan diintiisana wanaagsan wallahu aclam su-aasha ku xigta waxay odhanaysaa waxaad sheekh ka warantaa waxaa dhallinyartu waqtigan dambe u yaqaanaan kaminsuun oo macnihiisu yahay markaas waxa weeye nin iyo gabadh aan weli ismeersan inay baraha bulshada sawirradooda soo dhigaan iyagoo ama garbaha is haysta ama markaasi waxa weeyaan sawirka ay isku dhow yihiin iska soo qaadaya weli meherna aanu dhexdooda marin laakiin ay rajaynayaan waqti dhow inuu meherkoodu dhaco arrintaa xukunkeedu muxuu noqonaya arrinta ku saabsan sawirkaa la baahinayo horta gabadhi sawirkeeda inay baahiso marka horeba inay iska ilaaliso ay iska dayso weeye sida la doonaa sawirkaa loo isticmaali karaa waxaa la doonaa lagu dhejin karaa ama muuqaalka la doonaa loo yeeli karaa hadhow ninna inuu xaaskiisii ama gabadhu damacsi inay xaaskiisa noqoto sawirkeedii ragga usoo bandhigo idhaahdo hiblaayo ila daawada iyaduna waa kiiro darra wey waa hinaasa darra weeyaan waa wax aan fiicnayn dhalinyartuna marka ay guur ku heshiiyaan ama ay ka sheekaysanayaan waxaad moodaa maanta inay u dhaqmaan sidii dad maxram isu noqday oo kale oo caaniyo biyo la isku daray khalaas si dhammaystiran la isu dhex galo gabadha waa inay ogaato ninkani inta aan meher ugu dhicin inuu ajanabi ka yahay oo raggaa kale uula siman yahay ay dhicina karto fii ayi waqti min alawqaat inuu guurkii ka noqdo ama iyadoo ay ka noqoto markaa si taxadar leh arrimaha guurka marka laga wada hadlayo ama lagu heshiiyeba intaanu meher ku dhicin si taxadar leh oo gabadhi ay sharafteedii ilaashanayso oo ay talada wax kaga darayso in ay dhici karto guurkan inaanu hirgelinba ila waxa ilaahay agtiisa ka qoran ma ogeen waa in loo dhaqmo weeyaan in iyo markaa gabadhaan kuwii dee isqabay baan leenahay waa wax aan wanaagsanayn in iyo gabadhaan xaas u ahayn in sawirkoodii la isku dhajiyo ama ay dee sawir wada galaan oo meelaha la marmariyaana dhaqamada aan fiicnay inay nagu soo kordhay bay ka mid tahay marka taladu waxa weeye in la iska daayo wallahu aclam waayo su-aasha miduuni ay ka dambayso insha allahu tacaala waxa ay tahay sheekh miyuu jiraa wax la yidhaahdo marka uu qof dhinto gogol laab oo markaas waxa weeyaan la sameeyo maalmaha qofku dhinto maalmaha ka dambeeya gogol laabka waxaa ka horreeya gogol dhigista ile gogol la dhigay unbaa la laabaya soo ma markaa qofkii markuu dhintay in gurigii la goglo oo dad ay fadhiistaan ay kusoo ururaan oo inta badan dumarka waayeelkaayoo tusbaxya sita halkaa qul wallah iyo mala akhriyo faatixada iyo iska tasbiixsada iyagu malaa waxay isleeyihin meydkii baad u ducaynaysaa laakiin iyaga qur-aan iska akhrisanaya iyo iska digriyaaya reerkunbay culays ku hayaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadka geeridu ay ku dhacdo inaan iyaga culays la saarin iyaga loo ixsaan sameeyo ayuu tilmaamay jariir ibn cabdillaahi albajali waa kii lahaa waxaanu ku tirin jirnay dadkii ay geeridu ku dhacday in lagu soo ururo ururka ka aynu sheegaynoo kala weeye haddii wax loo qabanayo wax loo tarayo waa fiican tahay laakiin dad iska dul fadhiya waxaanu ku tirin jirnay inay ka mid tahay niyaaxada baroortoo kale wax lamida macnaa waxaan bannaanayn iyo raashinka ay samaynayaan dadkii geeridu ay ku dhacday labadaaba halkaasu wada mariyey saxaabigaas imaamu shaaficina wuxuu yidhi akrahu
المآتم وصنع الطعام waxaan karhaa buu ri kulanka lagu kulmayo lagu soo ururiyo guriga geeridu ay ka dhacday raashinka la sameeyo للأثر حديث كا جرير أو جيبان كرهابول إيو لأنه يجدد الحزن هي الكادات كلا صار يا مروجة دي بو سوء عصبونيسينية ضدك واحد الرباع جرير كل عيد مروجة دي أنا كل يراني أي سيد خساو إلا بانو هؤلاء ود الدين دي الدنيا بهراء وقف وفان لكن هدي ولي لا دول رندودو ولا دول فرديو دول فردي قال جرير دي بحصوصين هذا ترى مروجة دي بس يجي تمس وحكلوا أرنتها سكلف السبب الإمام الشافعي رحمه الله خرش وضد كده جريد كل عادي بابا يجلف دودي عليس حاجة نقالنا يلقوها هي نقنسها فجوش أمر كورا لندقة أيوة قاب كانوا عصلوا دقة ينصحاي إلا لما أنت جوش يبقى الله بيا كل أنبال الصمين يا الرجال قال كونه وحيابك على القط راس إذا وحفلته وكله وحشريعه ku soo arooray waxa soo dhimay maaha diintuna waa inay maamusho nolosheena iyo geerideennaba sida Ilaahay uu yiri walina salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu wa ana awwalul mu'minin wallahu a'lam su'aasha ugu dambaysa waxay oranaysaa sheekh dumarku inay ciidan noqdaan oo ciidamada ay galaan oo ay ku biiraan xukunkeeda ku yahay أصل كوحوية دمر كوين أنا عيدا نقول صاصة وحنا ودليل بقى جهاد كبوا ولا قد عافى صومه دي عيدا نما لا قرب بس الرجال جوا جبل جهاد النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحوي يريد دمر كمر كل هذا لكنا جهاد لا قتال فيه وحيدين كالذين شيء جهاد هم دقال هاي الحج والعمرة ويه حجك يا عمرضي يا كوتشي هذا بلا ردوك تكلا عيد النماد وحياة بدن بك سنة سيدين الجوادي الرجل حق الشو إن أي سفر إن الجشو يضو بلا محرمة حياة بدن بك ضرري واتشران حالة حديدا والله باهن كرجبردو إن عيد النقط وتصالحان جوازات كلام واحد لو يقنع إمجريشن كعيدا ما ظني إن لانت السعودالك نبت قليدي السعودالك يوحى عيدا إمجريشن الجوازات كشقية وكلام دمر ويوبا عنكران يعني باريتان كل سمية دمرك meelaha wadamada laga soo galo immigration ku yaal riboodada kale dekadaha iyo meelaha xuduudaha kale kaadee dumarkii oo kale cid baadha loo baahan karaa iminka Sacuudiga markaan tagno dumarkuna meel gooniye ka galaan raguna meel bay ka galaan dumarkana dumar baa baara de shurtiyada booliis taas kale waa loo baahan karaa de xaaje keento gabadhii way noqon kartaa ciidan laakiin marka lafteeda gabadhii waa inay xijaabka xidhnaato oo inay dirays isku taagto oo raggii ay shabahdo oo akaato isla markaa ay noqoto mid tabarruj sameynaysa marna oo banaana safar bila mahram oo inaanay gelin oo inaanay rag ajnabi ka oo inaanay dhex gelin waxyaabahaas oo waxay baynu sheegnay amalka gabadha in loo shardiyo dhanba halka loo shardinayo marka ay xaaje keento wallahu a'lam jazallahu shaykh khayr al-jazaa قلنا سؤالات سوى نواجه علي سؤالنا هذه أدوتر بديهين أنت لصوق قرية أنت شيخ ويديني أدوك البديهين أنت عريبا بدن أصيح الشيء وقتي أيام الحين قدم هذي وحان برارجيني يوم بريتو عليه لو محاضرة ومركز سحوية ختام كيه قبقبدية أيينو علي إن شاء الله تعالى يغنى سيدا ينقوى رؤسو عمرنا يسلم إذا أيا رؤسو عمر دونا وحان كلهم برارجيني dumarku marka ay baxayaan in markaas